waxaynu ognahay in ay adag tahay habluhu inay cod ku yimaadaan laba dhibaatana hortaagan labada dhibaato hortaagan mid waa haweenka laftooda oo aan iyaga isu codaynaynin oo marka laga hadlayo waxa aynu xaqiiqo ah oo jirta inay haweenku populationka ugu badan yihiin rag iyo dumar marka la yiraahdo inta ay iyagu xambaartaan ee guriga u joogta ee ay dhaleen marka lagu daranayo iyaga overwhelming majority ah marka horta iyaga lagama yeelayo inaanu maxaan ku dhahday aan iyagu isu codaynaynin laga yeeli maayo arrintaas haweenka ka qormi mayso mid kalena qormi mayso ka ragga laftiisu haweenku way u codayaan laakiin ragguna haweenka uma codayo labada problem baa hortaagan in haweenkeenu ka qaybgalka siyaasadda golayaasha qaranka ay ku yimaadaan tamxaan ku dhahday ay ka abuureen golaha wakiilada dhexdiisa ayaan aad iyo aad ugu hambaleynayaa saaxiibada Somaliland xubnaha golaha wasiirada ay ugu qoreeyaan dhammaan bulshada kale axsaabta iyo guud ahaan martida kale halkan inta isugu timid dhammaantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan filaynaa inay dhowr iyo 30 sannadood tahay Somaliland hadda intaynu la soo rafanaynay arrinta maxaan ku dhahday haweenka waxayna aynu ognahay ilaa iyo imika ka qaybgalka haweenka ee arrimaha siyaasadda inay nagu yar tahay waxaynu ognahay inaanay hadda iyo wixii ka dambeeya sinaba suurtagal u noqonaynin inaanay maxaan ku dhahday ka qaybgalka haweenka ee arrimaha siyaasadda golayaasha qaranka ay imika ay intaa ku sii ekaadaan waxaan filayaa markaa hadda imika arrinta ugu dambaysa muddaynu la soo rafanaynay inaynu samayno koote dumarku ay baarlamaanka ku yimaadaan waxaynu ognahay in ay adag tahay habluhu inay cod ku yimaadaan laba dhibaatana hortaagan labada dhibaato hortaagan mid waa haweenka laftooda oo aan iyaga isu codaynaynin oo marka laga hadlayo waxa aynu xaqiiqo ah oo jirta inay haweenku populationka ugu badan yihiin rag iyo dumar marka la yiraahdo inta ay iyagu xambaartaan ee guriga u joogta ee ay dhaleen marka lagu daranayo iyaga overwhelming majority ah marka horta iyaga lagama yeelayo inaanu maxaan ku dhahday aan iyagu isu codaynaynin laga yeeli maayo arrintaas haweenka ka qormi mayso mid kalena qormi mayso ka ragga laftiisu haweenku way u codayaan laakiin ragguna haweenka uma codayo labada problem baa hortaagan in haweenkeenu ka qaybgalka siyaasadda golayaasha qaranka ay ku yimaadaan si taas ay u fududaato waxa lagama maarmaan noqonaysa golayaasha qaranka ee xukuumadda madaxweynuhu uu madaxda ka yahay golaha wakiilada iyo saddexda xusbi qaran inay la yimaadaan oo aynu inteenaasi la nimaadno barnaamij sahlaya inay haweenku golayaasha ay yimaadaan beri dhowto waxaa inoo yimi kenyaanka qola baarlamaankeena loo soo diray gidigood waxay noqdeen haween dabeedna waxay dhahaan maxaanu idinkula hadlaynaa haweenba idinkuma jire odayada lafteeduna xaqiiqa rasmiya marka waxaan isleenahay xafiiskani qayb weyn buu ka tarayaa arrimaha haweenka oo aan ahayn kaliya inay golayaasha ka mid noqdaan ee ah dhammaan xukuumadda dhammaan xusbiyada dhammaan hay'adaha ganacsiga ee qaranka in xafiiskan laftiisa uu ka shaqeeyo haweenku sidii ay uga muuqan lahaayeen dhammaan intaas oo dhan waxaan leeyahay arrintani waa arrin qaran waa issue qaran maaha mid axsaabeed ay wax ku kala jiidanayaan maaha mid xukuumadeed waa arrin
qaranka dhammaantii saamaysa waana arrin dhaawac guddigan inagu wada ah way kori weyday harina way u kori weyday waxaynu u baahannahay waqtigii aynu imika arrintaas qayb weyn ka qaadan lahayn baynu maxaan ku dhahdayay ayay lagama maarmaan tahay waxaanu soo jeedin lahaa guddoomiyaha golaha oo xafiiskan hal abuuray iyo xafiiska salmo oo loo magacaabay waan filayno qof aad iyo aad sidii ragii hore iyo hablihii horeba u sheegeen qof aad muddo karo ah jariidad qudha afka ingiriisiga ku soo baxdo ajnabigu inaga akhristaanba dalka ka soo baxdo keligeed baa soo saarta marka waa qof aad iyo aad dedicated oo ah oo aad iyo aad halabuurkeedu wanaagsan yihiin inay soo qabanqaabiyaan shir ay isugu yimaadaan saddexda xusbi qaran hadda saddexdii xusbi qaran saddexdii guddoomiye keligii baa ka jooga macquul lama noqon karto saddexda xusbi qaran oo shirkaas saddexda guddoomiye ay joogaan guddoomiyaha baarlamaankuna uu joogo guddoomiyaha guurtiduna uu joogo madaxweynuhuna uu joogo marka halkaa laga soo hal abuuro oo laga diyaariyo barnaamijka sahlaya doorashada baarlamaanka ee soo socda sida haweenku tiro macnalo oo muddo kara ugu yeelan lahaayeen intaa waxa harsan waxa weeye inay dumarkuna kaalintooda ka soo baxaanoo ay dumarka u codeeyaan ragguna dumarku way u codeeyaan ragguna ay dumarka u codeeyaan marka waxaynu u baahannahay bacdama aynu qarsannahay inay populationkeena qayb ka mida yihiin oo qayb muhiima ka mida yihiin oo nus weynu ognahay oo weliba aynu filayno in ay nus ka badan yihiin inaynu maxaan ku dhahday qaranka aynu arrintaas ka daboolno oo mashaakilkeedu ka yaraado oo ay bulshada qaybtaa ka mid yihiin ay qayb ka noqoto hay-adaha golayaasha qaranka looga taliyo waan soo hambaleynaynaa guddoomiyaha baarlamaanka salmana waynu mahadnaqaynaa waanaynu hambalyaynaynaa xafiiskan inay madax ka tahay haweenkana waxaanu leenahay la shaqeeya kolle xusbi ahaan kulmiye ahaan waan la shaqaynaynaa dhowr jeerna ma arrinkan la yidhaahdo kootada xusbiyada kale mar hore iyo mar dambeba way nagu diideen waxaan rajaynayaa bal inay ama kootadan aan keennay aqbalaan ama ay farsamo kala keenaan aanu anagu farsamada keenaan aanu aqballo laakiin mid kalena keeni mayno kootadiinana aqbali mayno baarlamaankana laga yeeli maayo golaha wakiiladana laga yeeli maayo ka hadda fadhiyaana wuu diiday kii ka horreeyeyna wuu diiday marka waxaynu u baahannahay dee hadday suuragal noqoto oo golaha baarlamaanku diida haweenka oo xisbiyada qaranku ay haweenka diidaan dee dhaawac haweenku waxaynu kordhinaynaa dhaawac qaran ayaynu giddigan wada ogolaanaynaa inuu weligii yaalihii qaranka kusii jiro aad iyo aad baan guddoomiye ku hambalyaynaynaa salmana waanu hambalyaynaynaa waan anigu aaminsanahay inay xafiiskan ka soo bixi karto waxaana soo jeedinaynaa inta kalena inaynu la shaqeyno wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آدي أبو مهتسي هاي قدومية حسبي كلمية محمد كاين أحمد